بسم الله الرحمن الرحيم أخيارتا كحران channel كمان قبوتشي كلجين دمانتين يوم الصومالية ذا كلابا والسلامتين سلام بان هذا يدين سومرنايا وحن شعلي إن يركه الله أرن تاجن أو براه بالشدة dadku ay arkeen intooda badani arintaas oo gabadh walaasheena oo anigu aanan aqoon isku lahayn laakiin de gabadh Soomaaliyeed oo walaashay kala ma garanaysaa inagana walaasheena ay arin yani marka arintu ay wiil tahay markay gabadh tahay labay kala tahay adduunkan marka wadankeena laga imaado dunidan kale ee westernka reer galbeedka aad bay dumarka yani ixtiraam ay u leeyihiin waana ka mamnuuc waxyaabahaas oo kale in qof ama video laga duubo waxa jira dhaqan amba sharciyad u taalo wadamadan westernka oo qofka hadii video si qaldan cadeen lagu helano qofka video aad ka qaaday amba video aad ka duubtay aad ku mudan karto ciqaab amba waxa la kulmi doonto marka waxa jirtay in fanaanada Nasteexa Indho video dadku ay leeyihiin si qaldan buu u baxay ay baraha bulshada u yaalo amba dadku ay hadal hayaan horta si qaldan buu u baxay wax la yiraahdo ma jirto waa imma qofku u bareero live soo galaan amba wax kala ka hadlo isagu sidiisa isku soo baahiyo dadkuna ay si qaataan amba waa in qalad qof uu kugu sameeyay oo videogaaga helay sida wada ogsoontihiin Nasteexa waa gabadh family oo xaas nin baana qaba sida warar fara badan oo aan dadka qaar aan la xiriiray oo arinta aad ugu dhownaay ii sheegeen ay tahay waxay tahay in gabadh oo hore uu ninkaasi qabay Nasteexana iyada oo ninkeeda ma garanaysaa ay ugu tala gashay videogaas inay u dirto kadibna markii ay u dirtay kadib sida inagu aan wada ognahay dadka badinkoodana ay gabdhuhu ay sameeyaan dadku waxa jira inay mobilada ay wada wadaagaan marka ay family yihiin oo ninku iyo naagtiisu password connect oo hayso isna connectiisa hayo marka gabadhaas sida wararka xaqiiqada ay sheegayaan waxay tahay in ay gabadhu password ka haysay ninkeeda Nasteexana iskursadeen oo ma garanaysaa ay warkaana haysay kana maseersanayd kadibna iyada oo telefonkii ninkeeda inay ka dhaxashay videogaas si ay yacni ugu sameeyso maadaama gabadhan uu la guursaday gabadhan ay fadaxad iyo wax kale oo aad fadaxad weyn ay gaadho awgeed bay arintaas u dhacday gabadha adigu way ku guuleysatay inay videoga hesho dad ay saaxiib dhow yihiin baa ka garab siiyay in uu baaho videogani oo meel fog gaadho oo dunida oo dhan inta Soomaalida ay aragto way dhacday oo videogii dadku way arkeen inkastoo loo jeeday un wax saas aanay u si meel kale khataranaan videoga aanu gaarin laakiin ay iyada iyo wajigeeda un iyo inta laabteeduna ku koobnayd walow gabadh fanaanada ay tahay horeba loo arki jiray wajigeeda iyo qorteeda iyo timaheedaba hadana waxa ku jirtay in yaro maqraansa macaaneyn oo waxa la yiraahdo xiira waxa weeye yani habeenkii markay dadku ay kala seexdaan laba qof ay isqaba ay banaan ama meel iskugu soo haraan oo aqalkooda iyo meelaha wada joogaan dareemada goonida loo bixiyo ay xoogaa ku yar jireen videoga sida idinku baa indhina ku aragteen kulay marka arintan waxay tahay in ay yani gabadhaas uu ninku hore u qabay ay ka masartay guurka uu la guursaday gabadh caan oo fanaanad oo maqraas dadku ay yaqaanaan uu la guursaday ninku kadibna dumarka maseerku uu iska qabtaayo maseerku waa xanuun ay dumarku leeyihiin oo maseerku wax jira oo dumarku way maseeraan ta kale dumarku wadankii amba Soomaaliya joog jiray marka ay maseeraan ninkooda gacan bay ula tigi jireen amba way shiidi jireen amba aqalka uu ku guursaday naagta ku qabay weerari jireen waxbay sameyn jireen dumarkan westernka iyo wadamada reer galbeedka Europe iyo America iyo Australia meelaha jooga way ka gadisan yihiin sababta ugu gadisan waxa weeye meelaha ay joogaan lagama ogolo qofku inuu gacan geysto amba uu waxyaabo fal
gacmeed uu geysto sharciyad iyo wax qabanaya baa jira. dumarkii halkan joogayna way ilbaxeen oo waxay ku ilbaxeen, yacni way barteen oo dad waxay barteen waxaan la idhaahdo warbaahinta casriga iyo technicalka waxyaabahan la idhaahdo ama mobile haat amba computer haat wax kaasoo dhan way wada hayaan. marka adigoo naagtii qabaabay haddii doonto gabadhaadi jabsanaysaa dee magaranaysaa snapchatkaaga amba facebookkaaga ama instagramkaaga awood waxay u leeyihiin dumarka inay jabsadaan. ta kale marka ay jabsadaan yacnihii ay arkaan amba wax adiga ku khaas ahaa oo naagtaada kale aad idinka dhexeeya ay arkaan, dee naagtu way maseersantaho intay qaadataabay hawada gelinaysaa wixii markaasay kala kacayaan, adduunyo dhan baa isku burburaysaa. taasina waa qeyb ka mid oo waxyaabaha jira ee dee wadamadan reer galbeedka ka jira kana dhaca ayay ka mid tahay. waxaa jirtay in gabadh nin uu la guursaday, ninkii markuu la guursaday gabadhii ay ka iyada dee waad ogtay waqtiga in la wada qaybsado dadku way wada ogyihiin. markuu ninku laba xaas leeyahay inuu marna mid la joogo marna mid la joogo, isagoo tii kale la jooga oo ayaabaa tii laga maqnaa message loo diray, ay telefonkiisa intay gabadhii gashay messageka loogu dirtay oo ay yacnihii gabadhii kale ku aflagaadeynayso iska dhigaso inay ninkii qabay iyada uu yahay qofkani. markaa dhibaatooyinka saasoo kale waa lala kulmaa. dumarkuna waa dumar dee magaranaysaay gabadha markaad gabadh oo ninku markii hore qaba ay tahay caruur u dhasho, dee intaasoo dhan bay caruurta la rafaadaysaa gaari ku qaxaynaysayo taga sida caruurta waxaa la yidhahdaa ay ku qaxaynaysayo ay wadaysaa maogtay. marka gabadh iyo caruur koranaysa amba ubad haysa oo hooyo ah, markuu ninkii wadamadan aan joogno dee qofka cid caawisa ma jirto, qof kastaba hadduu 3 dhale 10 dhalaba isagunba la kaca ku fown. gabadhii caruurta la kaca ku fisa amba caruur ku haysa amba ninkii caruur haysada haddii uu naag kale la guursado dareenkeeda iyo marxaladeeda way isbedelayaan oo iyada oo ku socota tareenka isla qaada tareenka xaafadaha tagay qaadanaysa tareen ku socda Holland amba Denmark, yacni maskaxdeeda aan joogin awgeed. marka waxyaabahaas oo dhan ma dhaca. arrintan nasteexandada marka lagu soo noqdo sababta waxa weeyaan oon warar xoogaana ku haya in ay jirto gabadh nasteexando ka hor uu ninkeedu qabay, gabadhaasna ay videogaas nasteexaynda ugu tala gashay ninkeeda in maqranaysa aanu boring dareemindii. waxa jirta waxyaabo la idhaha boring, si yacni ay gabadhu u arko ninku dee gabadh furfuran oo khatar ahoo waxaan kula aan la malayn karin ayaabay ugu dirtay. kadibna saas ayay gabadhii kale uu qabay oo dee ninka ay wada joogaan oo la qofku telefonka xitaa masqusha lama gelayo. telefonka markuu ninku dee aqal degayahu naag qabo dee aqalku kaga tegaya halkaasuu dhigaya misku dhiganaya sariirtu ag saaranayaayo gabadhaadii kale aad qabtay kula joogtayna dee magaranaysaay waxyaabaha qaar aanad ka filinin baa dhici karta. marka marxaladan imika taagan waxay dee kor saaranta ninkii nasteexa iyo naagta kale wada qabay in isagu labadii dumaraba gacanta midig iyo gacanta bidix ka dhigto. waa arrin isaga u taala wala fiicanta inuu arrinta uu isagu dhammaystiro. inagana Soomaali ahaan inaanan u arkin magaranaysaay arrin ay ugu tala gashay, maadaama fanaanada dee nasteexaynda inaguna hore aynu u naqaanay inaan qofkii aan dabagalno inuu aad usii buunbuunino wixii weyna lagu qurux baday maadaama gabadh family tahay. ta kale say ugu maqaalaa wiil haysato wiilkeeda mustaqbalkeeda in loo dhowro oo qofku markuu dee hooyo uu yahay caruurna uu haysto caruurtaasi maanta maalin aan ahayn bay saameyn kartaa waxyaabaha la faafinayo iyo fiidiyoyada dadku ay qaada dhigayaan. marka ta kale intaasaan kaga gudbaya arrintaas oo waxaan jeclay inuu ninkaa dee labada dumara isku qaba gabadhan fiidiyowga bahaysay gabadhan duubtay isaga u dirtayba ninka isku qabaa inuu arrintaa dhammaystiri doono oo insha allah dee arrin isaga u taalaayta ilaahayna la garab galo. ta kalena xagga dumarka Soomaalida haddaan 2 kalmadood ka idhaahdo yacnihii hablaheena iyo haweenkeena iyo dumarkeena ah, waxaa qurux badan in dadku ay marka ay gabadhu ay gabartii xishoodka iyo hayuhuna waa qaali degdega in layska yara dhaafo. ninkaagu markuu kula joogo dee ay wada joogtaan nolosha macaankeeda inay isdhelisiisaan. markuu ninka kaa maqan yahay inaad samirtid oo aad yacnihii haddaad dee video iyo waxa inaanad ku degdegin oo aanad u dirin ninkii amba magaranaysa wax kasta adduunka way ka dhici karaa, telefonka ka lumi karaa, waa la jabsan karaa, si kalaa loo heli karaa. marka hadduu ninkii kaa baxay amba uu kaa maqan yahay oad u xiistay dee inaad telefonka qaybta audioga aad kala hadashid ama marka idinku as aragtaan dee sidii noloshiina aad idinkaa dee og moogta. laakiin waa laga qurux baday baan odhan lahaa inaad video lagu degdego. aad baan idin salaamayaa dhammaantiinba.
waxaan idinka codsanaya inaad halkan aad sii sheer garaysaan si dadka intaan ogeyn ay u gaadhaan. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.